السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دوادا دمانتين أصحابتا كوحدان كابي تكنولوجي لانجويج كسو دوادا عشقا مانتا ميل كستا كسوغانتهين مر لباد iyo mar saddexaad ba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. magacaygu waa Sharbaarka Raale Jaamac. mawduuceena maanta ayaan u guda gali doonaa. dhammaantiin idil ahaantiin saa isugu dhantihiin mawduucii ka horeeyay waxaan kaga soo hadalnay laziness, caajisnimada ayaan kaga soo hadalnay. inuu mawduucaas wax badan uu ka bedelay ama wax badan uu ku anfacay ayaan ka rajaynayaa. sidoo kale waxaan ka codsanayaa inaad videoga aad like-garayso, xaqiisa aad siiso oo aanad ka xasdinay aad videoga like u qabato. dhammaantiin kusoo dhawaada mar kale casharada Kaabe Technology and Language. mawduucyada inoo ka shidan tahay doorkan waxa weeye topicska ama mawduucyada ay nagaga dhacday doorarkan oo dhan, laakiinse mawduucyada soo socda ayaan dialogueska iyo qaybihii kala duwanaa ee conversationska aan ku baran doonaa. idil ahaantiin maanta mawduuca aan baran doono waxa weeye waa advisable topic. waa mawduuc waano waad saga baahan tihiin dhammaantiin saa isugu dhantihiin. advice waano tala bixin ama qofka in lala taliyo. marka mawduuca 39 cashka lesson 39 mawduuca 39 abood ku saabsan advisable topic. mawduuc waana leh advisable topic, mawduuc waana leh sidii caadada ahayd. marka hore waan wada akhrinaynaa, so waxaan rabnaa inaan isla wada akhrino idil ahaanteenba idinkuna ila akhridaan. okay, aan isla bilowno. fadlan intaanad bilaabinin waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo, aan ku iraado kusoo dhawow Kaabe Technology and Language. waxaad igala socotaa Facebook iyo YouTube. fadlan haddaad meeshaad iga daawanaysoba waxaan kaa codsanayaa inaad videoga like garayso, isla markaana asxaabtaada aad si fiican oo qurux badan aad ula wadaagto. sidoo kale channelka aad subscribe ku samayso, Facebookna aad naga soo follow garayso. waad ku mahadsan tahay haddaad nagu soo biirto. waxaan faa'iido ahayn naga heli maysid, faa'iido un ayaad nagala heli doontaa. mahadsanid. aan isla bilowno. I seek refuge into Allah. I seek refuge into Allah. I seek refuge into Allah from mischief of Kafir Satan. In the name of Allah, the most benevolent and the merciful, it gives me a great glee to stand ahead of the student and to achieve some potential articles which the student of today habituated to do. Dear listeners, allow me to greet you in advance, my precious Islamic greeting, which of is peace and blessing of Allah be upon you. After my greeting, the student of today don't always create profitable progress, but they demoralize their teachers and their parents because of they can't afford being tightly chased away for their perilous rudeness and impoliteness. Don't the student know that the teachers occupy the position of the parent? Of course they know, but they are hard-minded and ignore their faults. The responsibility of being a student must be carried out. It is a compulsory for the student to keep warmly the rules of education in order to succeed. okay, aan ku noqono markaa oo aan isla soo macnayno advisable topic. mawduuc waana leh. I seek refuge into Allah from mischief of Kafir Satan. I seek refuge into Allah. waxaan ilaahay ka magan gelayaa from mischief of Kafir Satan, shaytaanka la nacladay ee la dheereeyay. in the name waxaan ku bilaabayaa in the name of Allah, magaca ilaahay ayaan ku bilaabayaa. most benevolent, naxariista guud naxariista, and the most merciful, iyo naxariista gaar ahaaneed bar naxariista. I seek refuge into Allah. ilaahay ayaan ka magan gelayaa from mischief of Kafir Satan, shaytaanka la nacladay ee la dheereeyay. Kafir la nacladay ee la dheereeyay, Satan shaytaanka. in the name of Allah, magaca ilaahay ayaan ku bilaabayaa most benevolent, naxariista guud naxariista arraxmaanka ah, and the most merciful, iyo naxariista gaar ahaaneed ba naxariista arraxiimka ah. itiyadu gives me waxay isiinaysaa great glee, farxad aad u weyn ayay isiinaysaa to stand inaan istaago ahead of the student, ardayda hortooda inaan istaago, and to achieve aan ku booriyo some xoogaa
potential articles qodobo suurtagal noqon kara potential articles qodobo suurtagal noqon kara which qodobadaasoo the student of today ardayda maanta habituated ay caadiyeysteen to do inay sameeyaan. Dear listeners, dhegeystayaasha qaaliga ahow, dear listeners, dhegeystayaasha qaaliga ahow, allow me iyo ogolaada to greet you inaan idinku salaamo in advance ugu horeyn my precious Islamic greeting, salaanta aadka u qaaliga ah, salaantayda aadka u qaaliga ah ee islaamka, of which is taasoo ah peace and blessing of Allah be upon you. Peace nabadgelyo and blessing iyo naxariis of Allah be upon you, ilaahay korkeena ha yeelo. After my greeting, kabacdi salaantayda kabacdi, the student of today ardayda maanta don't always create badiyaaba ma abuuraan profitable progress, horumar faa'iido buuxda leh, profitable progress, horumar faa'iido buuxda leh, but laakiinse day iyagoo ardayda ahi demoralize waxay niyad jabiyaan, waxay qalbad jabiyaan that teachers macallimiinta and their parents iyo waalidiintooda ayay niyad jabiyaan because of maxaa yeelay day iyagu can't avoid kama fogaan karaan being tightly si adag ugama fogaan karaan oo kama durki karaan oo iskama ilaalin karaan just away in lagu buriyo, lagu cayriyo, lagu eriyo for their previous rudeness and impoliteness. xagga dambe ka sii akhri edebdaradooda iyo caasinimadooda khatarta noqon karta, previous khatarta noqon karta in lagu cayriyo oo lagu buriyo because of maxaa yeelay dee iyagu can't avoid kama fogaan karaan being tightly si adag ugama durki karaan oo isagama ilaalin karaan just away in lagu eriyo xaafadda tusaale ahaan lagaga eriyo, iskuulka iyo xiisada lagaga eriyo for their previous rudeness and impoliteness, edebdaradooda iyo caasinimadooda halista noqon karta. Don't student know, ardaydu ma oga miyaa that the teachers in macallimiintu akubay ay buuxiyaan the position booska of their parents ee waalidka, booska waalidka inay buuxiyaan ardaydu ma oga miyaa. Of course dabcan they know way ogyihiin oo way garanayaan oo way la socdaan, but laakiinse day iyagoo ardaydahi waa hard minor, waa kuwa maskax adag weeye, maskaxdooda aad ayay u adag tahay, and ignore waxayna iska indhatiraan, waxay iyagoo iska indhatirayaan their faults qaladaadkooda ama qaladaadka ay sameynayaan, faults qaladaadkooda ayay iska indhatirayaan. The responsibility mas-uuliyadda of being ee ahaanshaha la ahaanayo ee student arday la ahaanayo must be proved, waa in la cadeeyaa, must be carry out waa in la fuliyaa oo siday tahay waa in loo fuliyaa, must be carry out waa in la fuliyaa oo siday tahay loo fuliyaa. qof walba arday uu soo noqday ardaynimada waxa weeyaan waa mas'uuliyad gaar ah weeye, ardaygana in la fahansiiyo ayaa muhiim ah. It is a compulsory waxa khasab ah for the student ardayda waxa khasab ku ah to keep inay u ilaaliyaan warmly si diiran inay u ilaaliyaan the rules shuruucda ama xeerarka of the education ee waxbarashada, waa inay si cad ay u ilaaliyaan, si diiran oo adag waa inay u ilaaliyaan in order to succeed ay ugu guuleystaan. inta halka ashka hadda inta idinka muuqato waxaan u maleynayaa inaan isla fahanay. marka ardayda waxa ku qasaba inay u ilaaliyaan for the student ardaydu to keep inay u ilaaliyaan warmly si diiran the rules shuruucda of the education ee waxbarashada in order to succeed ay ugu guuleystaan. maxay ku guuleysanayaan? si ay ugu guuleystaan the long journey safarka dheer of their knowledge ee cilmigooda, long journey safarka dheer. qof walbaaba wuxuu ku jiraa safar dheer ayuu ku jiraa. haddii aanad safar waxbarasho aanad ku jirinin oo aanad waxbarasho dabada hayninna safar kale oo adduunyada aad kaga guurayso ayaad ku jirtaa. marka cid kasta waxay ku jirtaa safar dheer, sababtoo ah qof walbaaba wuu dhimanaya oo tan wuu ka tegi doonaa. marka si ay in order to succeed ay ugu guuleystaan the long journey safarkooda dheer of their knowledge ee
cilmigooda ama aqoontooda and succeed iyo guushooda si ay ugu guuleystaan waa inay ilaaliyaan xeerarka waxbarashada because maxaa yeelay knowledge cilmiga iyo aqoontu needs waxay u baahan tahay tolerance dulqaad ayay u baahan tahay if it isn't achieve haddii aan dulqaad la helina if it isn't achieve haddii aan dulqaad la helina oo laga helin from the student ardayda aan dulqaad laga helina haddii aan ardayda dulqaad laga helina their ambition iyaga hamigoodii ama goolkoodii ama wixii ay doonayeen will destroy wuu baabi'i doonaa oo wuu burburi doonaa and they will not reach mana ay gaari doonaan the zenith fiinta ugu sareysa of the tree ee geedka ma gaari doonaan sababtu waa maxay haddii aanu ardaygu xeerarka iyo nidaamka waxbarashada aanusan ilaalinin ma uu gaari karo meesha uu doonayo horena waan usoo sheegno cashirkii kan ka horreeyay ayaan si fiican ugu soo sharaxnay markaa dib soo daawo haddaana daawanin casharada ka horreeyay ee ku jira channelka the student ardaydu habituator waxay caadiyeysteen to arrive inay u yimaadaan at schoolka inay u yimaadaan collegeka inay u yimaadaan university jaamacadda inay u yimaadaan off and on marmar inay yimaadaan ayay caadiyeysteen the student ardaydu habituator waxay caadiyeysteen to arrive inay u yimaadaan at schoolka off and on marmar inay yimaadaan ayay caadiyeysteen de iyagoo ardayda ahay sometimes waqtiyada qaarkood play truant wayba gooyaan oo way jaraan truant gooyin way jaraan from the period xiisada ayay gooyaan oo ay jaraan what I surprised waxa aan la yaabay istaad ayaa ah de iyagu waa ardaydii self opinionated waa kuwa isla quman oo isla saxan self opinionated naftooda ayay la saxan yihiin if haddii de iyaga are notified lagu wargeliyo oo la ogeysiiyo their bad behavior dhaqankooda xun haddii la ogeysiiyo de iyagu instigate dib ayay abuurayaan oo dhibaato ayay abuurayaan and neglect isla markaana waxay dafirayaan oo ay diidayaan the sin dembigii de iyagu commit ay ku kaceen ayay dafirayaan oo diidayaan muddo 10 sanadood iyo dheeraad ah ayaan ardayda kusoo dhex jiray waxyaabo fara badan ayaan kusoo arkay ardayda indeed abahantii to be accused in lagugu eedeeyo eedayn of being ahaanshaha inaad tahay haddii lagugu eedeeyo impolite mid edab daran in lagugu eedeeyo inaad tahay dhab ahaantii would likely sida muuqata imply waxay ku dareensiinaysaa that you are low class inaad tahay mid fasalkiisu hooseeyo oo low class ah macnaha hoose ayay ku dareensiinaysaa an uneducated iyo mid aan waxbarasho lahayn oo aan tacliin lahayn oo aan waxba baran ayay ku dareensiinaysaa therefore sidaa daraadeed never try marnaba ha isku dayina to disvalue inaad qiimo ridaan oo aa qiimihii aa lahaydeen aa ridaan yourselves nafsadihiina inaad qiimo ridaan marnaba ha isku dayina keep in mind maskaxda taa ku hay oo ogow maskaxda ku hay that rudeness in edabdarrada caasinimadu begatis ay dhasho rascalness fadaqnimo iyo edabdarro iyo caasinimo inay dhasho if you become haddii aad noqotaan troublesome kuwa dhib badan haddaad noqotaan oo aad iyo aad u dhib badan you idinku will get the queue behind the student waxaa geli doontaan ardayda safka dambe ayaa ka geli doontaan oo xagga dambe ardayda ayaa kaga fayli doontaan if haddii you idinku become aad noqotaan troublesome kuwa dhib badan haddaad noqotaan you idinku will get waxaa ku dhici doontaan waxaa yeelan doontaan oo geli doontaan queue safka behind ka dambeeya the student ayaa geli doontaan maaha ardayda markay fasalka soo galaan inaa ka ugu dambeeya safka ugu dambeeya fadhiisanaysaane maaha ee waxa weeyaan nolol ahaan ardaydii xagga dambe ayaa ardayda ka geli doontaan yacni wax walba waa kaga hooseyn doontaan oo waa ku fashilmi doontaan nolosha ardayda xagga dambe kaga fayli doontaan please fadlan create waxa abuurtaan confidence kalsooni ku abuura in yourselves nafsadihiina ku kalsoonaada oo kalsooni ku abuura and be performance isla markaana waxa noqotaan geesiyaal noqda okay intan ayaan akhrinta aan dib ugu celinaynaa maadaama marka hore aynaan isku wada akhriyeen the long journey of their knowledge and success because knowledge needs tolerance if it isn't achieved from the student their ambition will destroy and they will not reach the zenith of the tree
The students habituated to arrive at school off and on. They sometimes play to auntie from the period. What I surprised is that they are self-opinionated. If they notified their bad behavior, they instigate and neglect the sin they commit. Indeed, to be accused of being impolite would likely imply that you are a low class and uneducated. Therefore, never try to disvalue yourselves. Keep in mind that rudeness and bigotis, rascalness. If you become the troublesome, you will get the cue behind the student. Create confidence yourselves and brave ones. dhammaantiin waa ku mahadsantihiin daawashada casharada Kaabe Technology and Language. haddaad halkan ila soo gaadhay fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad fiidiyoga like garayso haddii aad mawduucyada aad ka heshay Kaabe Technology and Language fadlan fiidiyada oo dhan soo wada like garay sidoo kale channelka dib ugu noqo mawduucyada ku jira aad iyo aad ayaad uga heli doontaa dhammaantiin waa ku mahadsantihiin kusoo biirideena Kaabe Technology and Language dhegeysigaagana waan kaaga mahad celinayaa in badan haddaad mawduucyadan u baahato ardayda inta ugu badan ay soo weydiiyaan xagaana buugta ka helayna buugaagta waad ila soo hadli kartaa iyagoo PDF lagu soo diri karaa buugaagtu way fara badan yihiin topicskii bay ku jira conversationskii baa ku jira short sentences baa ku jira casharo aad iyo aad u qiimo badan run ahaantii ayaa ku jira oo ka mid ah buugaagta aanu markaa maxay tahay soo gudbina qaybahooda ka mid ah marka dhammaantiin cidda u baahan waad ila soo xiriiri kartaa intaan mawduuca xiga aan ku kulmi doono waxaan ka rajeynayaa inaad fiidiyoga like ku qabatay channelkana aad subscribe garaysay sidoo kale Facebookna aad follow garaysay waad ku mahadsantahay dhammaantiin haddii aad mawduucyada aad wax ka faa'iiday casharada Kaabe Technology and Language fadlan like taa kala bakhaylin subscribe-na nagala bakhaylin inaad saaxiibada la wadaagtana taa kala bakhaylin waa ku mahadsantihiin intaan mawduucayga isugu iman doono magacaygu waa Sharmaarke waxaan idinkaga tagayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh